Xamida Natural Beauty. maanta saamuunaha badanaa waa intii aad horay iigu taqaaneen sida lavenderka oo kale maxay ahayd ansanti garoslinki iyo saamuntii qasilka ee aan inaba caadi ahayn qasilkeeni ayna naqaanay ee powderka ahaa ee dhirta ahaa la qasan jiray gabdhuhu wajiga marin jireen dhulkii hooyo waxaa cusub bahasha la yiraahdo honey waxa weeyaan tan honey iyo shea butter iyo oatmeal marka wajiga inaba caadi uma aha waxay u tahay maaragtay waxay leedahay cadaan aad siyaad u ah also waxay kaloo haysataa antioxidant waxay qalajisaa dadka acniga haysta eczemada sida caruuraha yaryar oo eczema haday leeyihiin oo kale xanuunka eczemada la dhaho kor cuncunka ayadana aad bay ugu wanaagsan tahay also lavenderka sidoo kale saabuunahan oo dhan gedi waxay suitable u yihiin maaragtay aysan waxba yeelaynin weeye wajiga waa face suitable maasha allah waxay u yihiin maaragtay wajiga safe bay u yihiin waxba ma yeelayaan tan hadda waa ansanti sida hore idinku sheegay oo oatmeal iyo haniga iyo shea butterka kuwana waa garsilin iyagana waa ansanti malaha tan laakiin lavender smell bay leedahay maasha allah tabarakallah smelkeedu inaba caadi maaha musqushaada markaad uga soo aad marba gashid waxaad smelkeedu maaragtay urteedu waxay noqonaysaa waxaad u malaysaa in dee perfume oo ah الله مستعان lavender in aad markasta ku buufisay marka maasha allah aydiyada kaloo dheerna waa udgoonka noocan nooci kaloo lagu yaqaanay waxay ahayd iyaduna bajuuligu maasha allah waa geed isaguna aad u qaaliya oo mundaawaad oo fiican saamuunihiisuna sidoo kale aad bay u fiican yihiin waa saamuuno qaaliya marka akhyaarta hamoogaanina page-kaygu waa Xamida Natural Beauty snapkayguna waa Xamida 1612 saas iyo daawasho